kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Qiso Maxamuud Qiise. halkaad kala soconaysaanna waa channelka ogaalka audio som. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. waxay hadba xaalad aanan anigu arag ay dadku ka sheekeeyaan anna la yaab iyo fajac ka sii qaado sida ay iga warbixinayaan ayaa ugu dambayn la i su'aalay maxaad la oroday. waxaan eegay wajiga qof walba oo i dul taagnaa intaanan jawaabinna waxaan qiimeeyey sida ay ii rumaysan karaan haddaan xaqiiqada aan u orday u sheego. haddana waxaan ka fursan waayay inaan runta u sheego dadka intaa la eg ee jawaabta iga sugaya. waxaan u sheegay inaan gabar cayrsanayay. ayagoon hadalka iga wada sugin ayay dhammaantood qosol la daateen. maamada oo aad uga xanaaqday qosolkooda ayaa tiri aamusa ha dhammeeyo wiilka hadalkee. gabadhu maxay ahayd ayaa la iiga fadhiyaa. waxaan idhi waa 12 jir. ma aqaano magaceeda. haddana mar kale ayaa qosol loo daatay. aad baan u carowday, laakiin maamada ayaa i su'aashay magaceed gabadhaas waa tuma. waxaan idhi ma aqaano magaceeda iyo qofka ay tahay, laakiin si aan u ogaado ayaan u ceyrsanayay. dadkii wajiyadooda qosolkii wuu ka guuray markiiba, waxaana soo fuulay wajiyadooda la yaab. waxaana ku adkaatay inay fahmaan hadalkayga. oo gabadhu miyaadan aqoonba u lahayn ayay maamadu i su'aashay. waxaan idhi maya, laakiin maxaad qofka ay tahay u raadinaysaa waad u daba ordaysay. waa su'aasha ay qasab tahay inaan uga jawaabo, haddana adag tahay inay dadku ila wada fahmaan. waxaan ka sheekeeyay in gabadha 12 jirka oo uu siday oday da' ah oo ciraystay ay saq dhexe xalay anigoo hurda igu soo garaaceen guriga, haddana aan ka furay oo ayagoon isu kay sheegin ay haddana iga tageen. hal mar ayaa shaydaanka la iska wada naaray. dadkii ugu qosolka waaweynaa badi dib bay u gurteen. waxaa dhammaaday su'aalihii marba qof igu soo tuurayay. talo ehelkii ayay isugu laabatay. markiiba waxaa la amray in la igeeyo qolkayga, dushana la iiga xidho. waxaa la doonay wadaado igu aqriya 114. waxaana timid habar caan ka ahayd xaafadda oo faalisa ah. waxay tiri ninkan jamaahiir baa dul saaran ee inta badda la geeyo biyaha dhanaan hala waraabiyo ilaa uu soo matago. dhir aanan aadmigu cuni karinna ha lagu qasbo si ay u hadlaan. waxaa intaasba iiga sii darnaa markii koronto aan cabir lahayn la igu qabtay, dhagahana makrofoonno waaweyn la iga dilaaciyey oo aan noqday qof nolol adduunba ka quustay. waddan aan lahayn dhakhtar dhimirka ah oo kala saari kara caafimaad qabka maskaxda aadmiga ayaa mar walba oo aan idhaah waan caafimaad qabaa waxay dadku igu lahaayeen maxaad ku caddaynaysaa caafimaadkaaga. haddana sidee asagu ku ogaaday ama ku ogaadeen caafimaad darradayda? ileen maahan mana aysan igeyn dhakhtar ha yeeshee waxaan anigu ku dadaalayay inaanan waayin caafimaadkayga maskaxda, maadaama jismigaygii kale
si jaahilnimo ah anoo arkaya loo jarjaray 4 bilood noloshayda ma aqaan sida ay ahayd xitaa kama wada sheekayn karo dhacdooyinkii soo wada maray oo dhan laakiin waxaan xasuustaa in xaafadaydii oo dhan la iga magac bixiyay yarkii waalnaa ee deriska qof walba inuu iga cabsado ama iga soo qaado sida ruux horor ah ayaa xoogaysatay waxaan marna agteeda soo istaagin gabadhii aan ugu jeclaa dunida ee markaana guurkeennu soo dhowaa mar waan ilmeeyaa keligay marna waxaan idhaa imise ayaa sidaada oo kale laga xoogay caafimaadkooda maalinkii ugu dambeysay oo la ii dhammaynayo quraankii muddada ii socday oo haddaan xilligaas dushayda laga hadlinna la igu celinayo korontadii yaciinkii qadhaadha ayaan fikiray waxaana qaatay go'aan ah in la iga dul hadlo laakiin weligay xitaa ma arag qof laga dul hadlaayo waxaan aad uga cabsanayaa inaan wax qaldo laakiin si walba intaas ayaa xal iigu dhow quraankii wadaadada oo socda ayaan bilaabay inaan gariiro ama jareeyo aniga oo jiraya hal mar baa la igu soo yaacay oo la iqaqabtay wadaadadiina quraankii ayay kor u sii qaadeen oo aayad walba 3 jeer bay ku celceliyaan waxaa la bilaabay in la ii dhaho hadla yaa tihiin maxaad miskiinka ka rabtaan jidhka qaar baa i xanuunaya oo ay si daran ii hayaan haddana qosol baan isku celinayaa oo sida ay dadku isaga daciif yahay baan la yaabaa markay xanuunka iyo su'aasha iga bateen ayaan idhi adeerayaal waa annageena fariisiya markaas ayuu wadaadkii yidhi fariisiya oo daaya farahana ka xidha kadib baa la i weydiiyey yaa nala hadlaya haddaan sheego magac qof caadi ah waxaan ka yaabay in wadaad maskiin ah oo meelaha ka dhow uu magaciisa noqdo haddana ma aqaan magacyada ay la baxaan dadka ka dul hadla sidaa darteed waxa uu mar afkayga ka soo baxsaday magaca ah adeerayaal waa Sheekh Curad oo soo booqday wiilkiina markaas waxaa niyadeeda ku taagan odaygii dhibtay baday waayahay Sheekh Curad maxaad ka rabtaa miskiinkan sida aan uga jawaabo su'aashan ayay ku xidhan tahay badbaadadeyda sidaa darteed waan u yara fikiray ugu dambeynna waxaan idhi adeerayaal Sheekh Curad uu ku soo qaldamay miskiinkan haddana isagoo tagaya ayaad idinku u yeedheen ee abid uu naga fasaxan yahay miskiinka Sheekh Curad haddaan ahayna markaan hadda ka baxo waan ka guurayaa aaggan iyo qaaradan oo dhan oo waxaan degayaa jasiiradaha bariga fog Australia idinkuna nasiya waa daaliseen wiilkan miskiinka ah intaas markaan idhi dadkii way wada farxeen kadib ka bax iyo baxay ayaa isxigay dadkaygii oo u haysta inaan hadda uun caadi ahay ayaa ayagoo faraxsan keenay guriga isla habeenkii u horeeyay 4 bilood kadib aan ku xisaabtamo hurdo taam ah weeye laakiin abaarakowdii iyo barkii habeenimo saq dhexe ayaa ilinkaygii haddana garaac la mid ah kii hore oo kale aan ka maqlay waan naxay naxdin daran weliba jiifkii waan ka booday istaag iyo fadhi midna kuma sugni weli iridda waa la garaacayaa waxaan si tartiib ah ugu dhaqaaqay iridda si aan u fahmo qofka uu yahay kan garaacaya la soco qaybta afraad